kulankani dood cilmiyeedka ee lagu gurfaynayay dhibaatada qabyaaladu leedahay iyo saameynta ay ku hayso bulshada ayaa ka qabsaday habeennimadii xalayta hotel deer ee magaalada Burco waxaana dood cilmiyeedkaasi qabanqaabadeeda iska kaashaday macadka horumarinta aadamaha iyo ururka kacdoonka ka soo jeedka qabyaalada oo marka magacooda la soo qaabiyo loo yaqaano ATM waxaana kulankani suurtageliyay xarunta daraasaadka iyo cilmi baarista ee Daljir oo ka aasaasan magaalada Burco kulankani ayaa waxaa ka soo qayb galay ardayda jaamacadaha magaalada Burco ganacsato xogayaha gobolka Togdheer iyo ururada kala duwan ee bulshada rayidka cilmiyeedkan ayaa diiradda lagu saarayay sidii qabyaalada looga cirib tiri lahaa dadweynaha magaalada Burco waxaana meeshaasi ka hadlay Cabdifataax Faysal Xuseen oo ka socday ururka kacdoonka ka soo jeedka qabyaalada ATM isagoo marti sharafta u iftiimiyay dhibaatada qabyaaladu leedahay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa macadka horumarinta aadanaha Human Development Institute iyo kacdoonka soo jeedka qabyaalada Anti-Tribalism Movement oo marka la soo gaabay loo yaqaan ATM waxaana barnaamijka noo suurtageliyay Daljir for Training and Research oo bayskoodii aan magaalada Tana caawi joognay Burco barnaamijka waxaan isku dayi doonaa intaan ku guda jirnay inaan ku falanqeyno qabyaalada iyo dhibaatada ay leedahay annagoo ayna noqon doonin inaan idinkeena la hadalno oo gorar balse aad idinkuna nala hadashaan aad codkiina soo gudbisaan iyo sidaad u aragtaan qabyaalada iyo dhibaatada bulshada ku hayso marka hadduu dadku inta badan xilliga ay soo weynaanayaan saameynta ku yeelato waxaa ka mid goobaha waxbarashada marka loo eego dunida aanu ka nimid maxaa yeelay intaad yar tahay aad iskuulka dugsiga hoose dhiganaysa inta badan way yar tahay in qabyaalad laga hadlo balse marka dugsiga dhexe ama high schoolka loo aado waxaa timaada in caruurta kale ee Soomaaliyeed inay ku weydiiso qolada tahay cunug yar oo Soomaaliya oo ku dhashay qurbahaas aan weligiis waxaas maqal inuu markaa dib isku weydiiyo oo reerkiisa ku laabto uu yiraahdo hooyo aabbo horta anigu ma yaan ahaa qolada sidoo kale Maxamed Cumar Cismaan oo gudoomiyaha macadka horumarinta aadamaha ayaa isaguna ka hadlay goobtaasi weynaha magaalada Burco ku dhiirigeliyay inay ka wantoobaan aafada qaran ee qabyaaladu leedahay qabyaalada waynu wada necebnahay laakiin haddana mid walba inaga midi qeyb iyo sharaxaad guud buu haystaa haddaba shaygan aynu mid walba faham iyo garasho isaga u gaar oo ka haysto aynu haddana wada cadowsanayno inagoo wada jira miyaynu la dagaalami karnaa de waa maya haddii adood wax kale ka aaminsan tahay anaan wax kale ka aaminsan oon laba dhinac ka joogno arrintaa inaynu cadowga jebinaa way yar adkaanaysaa laakiin markaan bage keliya iyo dhinac keliya iyo dariiq keliya wada istaagneen faham isku mida ka qaadano markaasaynu baasha dili karnaa marka golahan sida Cabdifataax sheegay wuxuu noqonayaa mid aynu faham isku mida ka wada qaadano waran inagu taagan oo qabyaalada soo maaha samaya okay kadib markaynu ka qaadano hadimadu ina baday aynu isdareensiino maxayna baday maxaynu ugu mudday maxayna ugu samaysay markaynu meelaha xanuunaya isxoqnana inaynu raadsano xalkeenu qabno kadib halka kaga takhalusno waxaa iyaguna madashaasi ka hadlay Sheekh Cabdirashiid Baaxir iyo xogayaha gobolka Togdheer Cabdiraxmaan Aadan Ibraahim Maxamed Salaad Cali oo sarkaal sare oo ka socday xarunta daraasaadka cilmi baarista ee Daljir waxaana dhammaantood si isku mid ah qabyaalada ugu tilmaameen xanuun xun kaasi oo loo baahan yahay in guud ahaanba laga ciribtiro bulshada ku dhaqankayga Somaliland haddaba hadda aynu ka sheeganayna aynu la taahayna xanuunkeeda inahayo anigu waxaan ugu yeeraa runtii ummul masaa'ib hooyadii dhashay masaa'ibka iyo aafooyinka ummadda Soomaaliya la yidhaaho uu ku dhacay oo dhan inay qabyaaladu dhashay barnaamijkan gaarka ah kahortaga ama dagaalanka qabyaalada anigu hadduu sheekhu runtii ka sheegay aad iyo aad uga quracsanahay waxaan oran karaa waa virus ka mid ah virusayaasha runtii dhex gala dhiigga bini'aadamka marka qabyaaladu runtii in badan baa laga hadlay aboonkeyna caankaa ilaa naxariistee abwaatimo cadday oo kalahaa dugsi mada qabyaaladi waxay dhimsan mooyaane innagu haddaynu nahay dhalinyartii ama farcii jiilkii gobolka Togdheer guud ahaana Somaliland waxay mar walba inaga reeban haddaynu nahay maamul iyo haddaynu nahay shacaba in aynu ka hortagno oo aynu mas-uul ka noqono dhammaanteen in aynu qabyaaladaas waxaa khuseeya saameynteedii dhalinyarada qabyaalada isku yeelanayaan hadday xumaato say noqonaysaa hadday wanaagsanaato say noqonaysaa qabyaalada iyo siyaasadda saasaan wadagnay siyaasadda wanaagsan waantay siyaasadda xun waantay inagoo ku salaynayna marka hore magaalada Burco kadib gobolka kadibna heer qaran ka dhigayna oo cagaalsa daraasadan waxaanu diiradda saarnay dad aad u fara badan
oo haddii ka yihiin intii munaasabadani socotay ayaa iyaguna dadweynihii kasoo qayb galay madashaasi ay su-aalo kala gedisan halkaasi ku weydiiyeen mas-uuliyiinta goobtaasi ku sugnaa ka kala sooday ururada kala duwan iyo mas-uuliyiinta gobolka tog kastaba ha ahaatee oo markii ugu horeysay oo dood cilmiyeed noocan oo kale ah taasi oo diiradda lagu saaraya aafada qabyaaladu ku leedahay bulshada lagu qabto magaalada burco maxamed xuseen axmed mooto shabakada caalamiga burco online magaalada burco.